ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgalo dad badan lagu soo qabqabtay ka fuliyay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo ka qayb galay munaasabad magaalada Hargeysa loogu qabtay qurba joogta ka soo jeeda Soomaaliland banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo dagaalada ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose oo maanta lagu qabtay magaalada Marka qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliland oo si weyn u taageeray golaha wada tashiga iyo toosinta qaranka ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Hargeysa tababar magaalada Qardho uga furmay qaar ka mid ah shaqaalaha cashuuraha madaxweynaha maamulka la baxay Somali Central State oo maanta gaaray magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud iyo wararkii ugu dambeeyay ee wadankan Britain qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena qadar raxaysiisa kadib oo diyaar garooba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو ونكسن داوديال ميل كستون نقا داونيسان كسو دوادا ورك رويال تي في أو ستوصدين كغا إيمانيا استوديا مقالة لندن وركنا واحد لا سعودسيد دونانيقو محمد عبد السلادة ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa howlgalo ballaaran waxa ay maanta ka fuliyeen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaana lagu soo waramayaa in howlgaladan ciidamada ay ku soo qabqabteen dad aad u fara badan oo looga shakisan yahay in dhinacyada ammaanka ay dhibaato ku hayeen waxa warbixinta warkaasi magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe inooga soo diray wariyaheena Aadan Xuseen Daawud howlgaladani oo aroortii hore ee saaki ka bilowday xaafadda hanti wadaag ee ka tirsan gudaha degmada Jowhar ayaa waxay ahaayeen kuwa si wada jir ah uga qayb qaadanayaan ciidamada militariga dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Jowhar iyo taliska ciidamada AMISOM ee ku sugan nahduleedka degmada Jowhar dadka ayaa ku waabariistay wadooyinka soo gala waaxda hanti wadaag oo idil oo ay ku hareysan yihiin ciidamada AMISOM oo xiligaasi dadka isurtaag kaga sameynaya in ay u tallaabaan selada hanti wadaag iyo sidoo kale xaafadaha magaalada howlgalka oo qaatay muddo dheer isla markaana galinkii dambe ee maanta soo gaaray ayaa waxaa ka hadlay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada Soomaalida iyo waliba ciidamada AMISOM oo ayagu shir jiraayid ka qabtay arinta qusaysa howlgalka maanta ee ujeedkiisa uu ahaa sida ay sheegeen mid lagu sugayo amniga degmada Jowhar taliyaha hogaaminaya howlgalka ee ciidamada militariga dawladda Soomaaliya ee saaki howlgalada ka fuliyay degmada Jowhar ee lagu magacaabo Shataqay ayaa u sheegay bahda warfidiyeenka in guud ahaan howlgalada ay sii soconayaan kaas oo uu sheegay in ay tahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Jowhar intaasi kadib waxaan la sheekaystay Colonel Benza Olenga oo ah kumaandaha ugu sareeya ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo ka warbixiyay howlgalka iyo waliba ujeedooyinka ayaga dhankooda ay kaga gol leeyihiin howlgalkaas oo ahay mid loogu talagalay in lagu sugo amniga degmada Jowhar saaka waxaan galnay xaafadda yiraahdo hantiwadaag ka tirsan degmada Jowhar haddana howlgalka wuxuu ku socoyaa si aad iyo aad u fara badan markii uu soo gabagabo waxyaabihii oo sheegeen inta badan waxaa ka mid ah dad badan oo laga sheekaysanayo soo qabanay waxaa kaloo kamid ah inaan soo qabanay dad sheegeen ayagana la shaqeynaya al-shabaabka waxaa kaloo kamid ah inaan helno waxyaabaha qarxa kaga qorshaysan dadka aad howlgalka saaki ku soo qabateen dadka waa kala saari doonaa wixii dambi doonaan waxaa dambi lahayn waa diidana haduu leeyahay hadda ilaa ay dadka aad gacanta ku soo dhigteen wadar ahaan waxa ay leeyihiin mid la socota waxay leeyihiin ilaa iyo hadda adiga 30 oo dhay What goes at this time this operation with our AMISOM conduct the operation it is true that since last year they have not yet conducted these cordonances within town but with the military they know how to do their thing so there is nothing behind why the cordonances operation was not done last year and why is it today. The people have captured this operation. What do you have proposed to do? To the people, I am appealing to them to cooperate with the soldiers. If you wake up and you find that a soldier is at the door of your house, please don't panic. Just do what they want. Let them search
check your house when you are there, so as it should clear the rumors of saying that probably I've lost something in the hand of the soldier. Okay, can you point us the last day will be finished this operation? I cannot say because this is not something which we are going to do it continuously. But today we have chosen to do this part of your town. And I'm assuring you we will cover the whole town. Not today, not tomorrow. Okay, you are thanks. howlgalkani ayaa intii uu socday waxaa lagu soo qabtay dad aad u fara badan oo ay u badan yihiin dhalinyaro iyo waliba sidoo kale hub ay maamulka sheegeen in uu yahay mid ka lagu carqaladeynayay deganaanshaha magaalada Jowhar siday hadalka u dhigeen iyo sidoo kale dad la aaminsan yahay in ayagu ay ka qayb qaadanayeen qalqalgelinta amniga magaalada Jowhar waa howlgalkii ugu ballaarnaa ee maamulka Shabeellaha Dhexe ee dawladda Soomaaliya taliskooda ciidanka militariga iyo kan Amisom ay ka sameeyeen magaalada Jowhar tan iyo markii 9kii bishii December sanadii tagtay 2012 ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Jowhar maamulka Shabeellaha Dhexe waxaana howlgalkani uu noqonayaa mid sida ay sheegeen lagu doonayo in lagu soo celiyo deganaanshaha magaalada 2 bilood ka hor sida ay ahayd Aadan Xuseen Daawud Royal TV Jowhar madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulan kula qaatay madaxda warbaahinta ka howlgasha gudaha Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana kulankan ujeedadiisu ay ahayd sida warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay uga qayb qaadan lahayd habka la doonayo in lagu soo celiyo nabadda dalka Soomaaliya waxa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeena Aways Jilacow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gudaha aqalka madaxtooyada fila Soomaaliya kula kulmay agaasimayaasha iyo howlwadeenada warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu weyn warbaahinta kala hadlayay maanta waxay ahayd sidii u arkaan qodobada ku jira xeerka dhawaan ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xaaladda waqtigan uu ku jiro gudaha dalka Soomaaliya qaar ka mid ah wariyaashii ku sugnaa kulankaas oo iyagu loo ogolaaday in hadallo ay ka jeediyaan madasha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u sheegay in xeerka ay soo bandhigtay wasaaradda warfaafinta ay ku jiraan qodobo badan oo ka soo horjeeda madaxbanaanida warbaahinta Soomaaliyeed loona baahan yahay in qodobadaasi laga saaro iyadoo dhinaca kale qaar ka mid ah wariyaashii kulankaasi ka hadlayna ay sheegeen in xaaladda ay ku shaqeeyeen wariyaasha Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho in waqtigan ay tahay xaalad adag xeerka positive-kiisa iyo negative-kiisa positive-kiisa badan ay dad qabaan dadna ay qabaan maxay ahayd negative-kiisa badan xeerkan horta marka laga hadlaayo aqoon lagu hadlaayo oo maxay ahayd dad academic ah oo wax bartay ahaan loo fiiriyo xeerkan waa xeer wanaagsan oo loo soo saaray saxaafadda Soomaalida marka laga reebo wax yar oo tifaf ah oo ku jira oo saxaafadda madaxa banaanideeda ka hor imaanaya wax kasta xeer la'aan soconaya ma jiraan waa fowdo bilowgeed laakiin xeerku wuxuu ku fiican yahay inuu ka bilowdo wax la isla wada ogol yahay wada tashi wasiirka wuxuu sheegay waqti badan la geliyay ilaa uu tashtay laakiin annaga waa dhalinsanahay waqtigii wasaaradda soo saartay iyo waqtiga macnaha mataqaanaa xukuumadda ay ansixisay inta dhalinsaan ka mid ahay markaan ra'yiin macnaha mataqaanaa ra'yiga aan dhibto dee dawlad iyo nidaam iyo waxaa la marayaa haddii alla kuuroon yahay adduunyada casriga inaan la saaqaad marka inaan ka gudubno dhaqamadii hore intaasna bahda saxaafadda waa kula talinaya dawladdana waxaan ka codsanayaa maanta maadaama madaxweynihii ugu sarreeya aan hortaagana in dulqaadna loo yeesha iyada laftirkeeda marka waqtigooda dhalinyarada lagu shaqayn karo waxaa ii muuqata xeerkan markii golaha wadada soo qaadmay kadib in dadajin xoog yani ka muuqata ay ku jirto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qaybihii dambe ee kulankaasi ka hadlay isla markaana khudbad dheer ka jeediyay ayaa sheegay in wariyaasha Soomaaliyeed waqtigan ay ku shaqeeyeen xaalad adag waxaana uu tilmaamay in qodobo badan oo ay ka soo horjeesteen wariyaasha ee ku jira xeerka dhawaan la soo bandhigay laga reebi doono kadib markii wadatashi ay ka sameeyaan wariyaasha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya la sharciyeyna burburkiya la sharciyeyna kala aamin bixiya la sharciyeyna isku soo noqosho la'aantii la sharciyeyna goorma marka inta isku soo noqono aan noqonaynaa ummad toosan oo hal dal iyo hal dawlad iyo hal magaciisa goorma noqonay mathaala jira oo mar walba soo qaato ah gacantaada jajabto gacanta haday jajabto ama laf kasto jirkeedu ku jirto haddii dhakhtar ortopediga lafaha inta loo geeyo isku toosiyo la kabo muddo ka bacdi gacanteedii hore ku soo noqonaysa Soomaa
laakiin haddii la keli waayo oo la fihi kala reestaan oo ay si qalloocan oo muxuu ahay kala qalloocan u kabanto gacantii inkastoo meesheedii ku taalo gacanteedii maaha waa kala burburnay maanta waxaan doonaynaa inaan isku soo noqonno in laga wada hadlo laga wada fadhiisto warseen hore ugu soconaa la yidhaahdo mar walba waa ku celina su-aasha see hala xoojiyo su-aasha see waxaa ku sameyna adigu waad isweydiisaa joornaalkaaga see u qurxoonaada idaacaddaada sidee midda loogu dhegeysi badan yahay u noqotaa maxaan kala website-kaada kale loogu daawasho badan yahay see u noqdaa telefishinkaada u adkana sidaasoo kale ubaa soomaaliya u baahan tahay sidee dalkaan uga dhignaa dad nabada oo degan sidee dalkaan uga dhignaa dad muxtarimiin oo adduunyada horteeda ixtiraam ku laho laga heegeysanay ninka meeshaas socda waa soomaali ama gabadha meeshaas socda waa soomaaliya aad iyo aad ayaan mar kale wax badan inaan idinla hadlo oo aan wax badan idin sheego waa jecelahay laakiin duruufaha ayaan saamixeen indhihii iyo dhegihii ummaddu indho iyo dhaga fiican noqda dowladdana oo anaga madaxweynaha ka ahayna waxaan ka shaqaynaynaa indhahaasi inaanan saxarna ku dhicin dhegtuna aan dhulka ka buuxsan haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad kulankii uu maanta la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmo ka hor madaxda dowladda soomaaliya ee kulamo ka lamid ah la qaadanayeen mas-uuliyiinta warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho iyadoo waxa ugu badan madaxda dowladda iyo wariyaashuna ay ka wada hadlayeen ay ahayd sidii wax looga bedeli lahaa qodobo ku jira sharciga dhowaan ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya aweys maxamuud julco royal t v muqdisho wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu hortagay golaha baarlamaanka Soomaaliya waxaana mar kale uu horgeeyay hindisa sharciyadeedka loogu talagalay hawada Soomaaliya waxaana uu sheegay in wax badan xilligan ay ka bedeleen qorshihii hore waxa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya inooga soo diray wariyaheena Maxamed Ibrahim Gaabo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay mar kale kulan ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho iyadoo maanta uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari kulanka baarlamaanka ayaa maanta waxa hor yimid wasiirka warfaafinta iyo boosada ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Cilmooge Xirsi iyadoo kulanka intiisa badan looga doodayay hindi sharciyeed ay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya taasi oo lagu wado inay ku howlgasho wasaaraddaasi inta lagu guud jiray kulanka baarlamaanka ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya waxay su'aalo weydiiyeen wasiirka warfaafinta su'aalahaasi oo ku aadan controlka iyo waliba maamulka hawada sare ee Soomaaliya waxaana wasiirka warfaafinta ee boosada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya ka qanciyay baarlamaanka su'aalaha ay weydiiyeen
maal faa'iido badan inaad soo me something aad ku dhasatoo email ka dhigato marka macnahaynu samaynaynaa oo ilaah baa ina siiyey inaan soomaaliyana aanu escowen marka qiyaastaas maliyan maaha 400 sano laga sameeya xisaabaadka aad ku aragteen oo aad maqasheen mooye hal shilin nagama soo gelin marka waddanka joogay hal shilin waxaan u diray lacagaha in la soo wareejiyo aqoonta majoog noqotay majoog oo ay soo wareegi labaad noqotay oo sanadkii labaad waxaan codsaday in la soo wareejiyo koontada lagu soo wareejiyo waxay noqotay accountiga wasaaradda markaas lahayd mid la yeelan waayo routing number swift code bay ku xidheen waayo xawaalad iyo waxaas suuragal ma aha marka hadda central bank la rabnaa inaan kusoo shubno lacagta kulanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa yimid kadib markii ay soo xaadireen xildhibaano gaaraya 182 xildhibaan dood dheer kadib iyo falanqayn ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayay waxay sidoo kale ku meel mariyeen hindi sharciyeed ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya taasi oo loo maalin looga doodayay iyadoo ugu dambeyntii natiijadu uu ka dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari الشرعي انت عن لوجه من ملاوينها جمهوريه الفدراليه الصوماليه الصور لو كمبليت او الا كان عندنا hindi sharciyeedkani maanta ay meel mariyeen baarlamaanka Soomaaliya taasi oo soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu wadaa in la horgeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si sharcigaasi soo gudbiyeen wasaaradda arrimaha dibadda uu hirgalo Maxamed Ibrahim Gaabo Royal TV Muqdisho qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyay golaha wadatashiga ee toosinta qaranka ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Hargeysa waxa warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Yaxya Sheekh Ismaaciil xubnahani ayaa isugu jiray siyaasiyiin aqoon-yahaniin iyo walibana qurbajoog oo u dhashay dalkani Soomaaliland xubnahaasi oo ku qabtay shir jaraa'id ee magaalada Hargeysa iyagoo oo taageero buuxda siiyay golihii dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee la magac baxay golaha wadatashiga iyo toosinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xubnahani ayaa sheegay in ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin golaha wadatashiga iyo toosinta qaranka Soomaaliland kaasi oo ay ku jiraan qaar ka mid ah hogaamiyayaashii ururkii SNM ee ka dambeeyay qaranimada iyo go'aan istaaga Soomaaliland xubnahani ayaa shirkooda jaraa'id waxa uu dhacay sida tan halkan waxaanu isugu nimid kulan muwaadiniin ku kulmay in muddo in laba habeenaba magaaladan Hargeysa ee dad joogno haddii aanu nahay xubno ka mid ah aqoon-yahankii dalka oo ishelay kuna qancay in dalku marayo marxalad adag haddii ay tahay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca bulshadaba isla markaana qawad badan ka muujinay hay-adihii wax ka qaban lahaa waa xukuumadda ama ka hadli lahaa waa qolyaha kale ee xilka dastuuriga ah ka saaraa waxaanu kulankan ku muujinaynaa taageero buuxdana ku barbar taaganahay golaha toosinta iyo wadatashiga sidaa daraadeed ayay odayaashii hore dhawaaqana ay go'aankoodu ahaa annagoo ah aqoon-yahaniintii Soomaaliland oo ishelay oo qurbajoog iyo gudajoogba ah aanu go'aansanay inaanu shir saxaafadeedkan qabanno dalkeena waxa burburiyay qabyaalad ay dhashay xukuumaddan maanta joogta iyo xukuumadihii ka horeeyay marxaatiga idinkaan idin soo qabsanayaa haddii ay furi weydaan nin beelaalo cidla ka hadlaan noqonaya waxaynu arkaynaa xukuumaddan waxay leedahay hoggaan iyo golihii wasiirada oo ah dadka u xil saaran inay dhaqan geliyaan siyaasadda qaranka u dejisan oo ah horumar hadday tahay xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga siyaasadda iyo hadday tahay xagga bulshadaba waxaanu arkaynaa wasiiradii qaranku ee u dhaartay inuu nin waliba dhakada ay ka saaran yihiin hadday yihiin ciidamada ilaalinaya oo qoyskiisa ah hadday darawaliinta tahay hadday washmaniinta tahay hadday tahay maqaaxiyaha ay fadhiisanayaan iyo goobaha ay tegayaan oo ku kooban oo qura nin waliba qoyskiisa oo qura iyo deegaankiisa
marka aanu taageersanahay waxa kale aanu soo jeedinaynaa in ummadda reer Somaliland ay nabadgelyadeeda ilaashadaan annagu kuwa nabadgelyada annaga iyo golutoona qaar nabadgelyada dalka khalkhal gelinaya ama halkay joogteen ka xumaata doonayo manihin waxaan doonayaa in hore loo dhaqaaqo qodob qulun baa meesha yaala war waxa la isu hayaa Somaliland darnin le war xuquuqdii war Somaliland halkaynu kaga tagnaa iyo nin diidan war Somaliland halkay masiirkii ummadan ay u dhimatay halkaynu dhignaa ummadan go'aan bay qaadatay boqolkiiba 97 baa qaatay in goonistaagga Somaliland yahay muqaddas war rabitaankii ummadda ma halkii uu ahaaba oo la yaamso waa laga kaxaynayo inama gambooyin iyo sarifye yar ku soo qaadanaya anigu waxaan ka hadlayaa waxa ugu qiimaha badan leh ummad yeelato oo aqalanimada haddii aan qalanimo jirin dabcan inaguna Somaliland nimaadneen qalanka ballaaran Somaliland ma jireen qalanimadu waxay mudan tahay in la ilaaliyo oo aan lagu degdegin حتى تلاويك القاضي معهم رساحة إن لجود دينون سد حد اللي لو قاضوا حكومة مدحوين سيلاني واحد لا تشمت هل كأنه كجذب لي لبعتن يلا بلا سنة كول إن ما أنت ولا قبل لعبه تسمع وياه إن أي وضع هذا توست لقى شو حكومة دي إنه kala soo noqonay madax banaanideenii lixdankii nimankii odayaasha ahaa ee ku dhawaaqay tala qaranayay ogeyn oo rag wada mucaarif oo aynu garanayna ah oo waaweyn oo raggii mujaahidiinta ahaa leh raggii ku dhawaaqay qaarkood Saranba ay ahaayeen sida Maxamed Xaashi ragayn Xasan Ciise Jaamac waa bayskii ku dhawaaqay horta SLM gabigeediiba maanta xorriyadda aynu haysana keentay halka taa markan ku dhaafortay arrinka markii la eegay ee wax la rogay su'aalay waxyaabo badan baa la isla arkay kullaana waxaan ka hadlayaa geedi socodkii dimuqraadiyadda aynu higsanaynay oo god madow ku dhacay haddaan ka soo bilaabo xilligii madaxweyne Riyaale ee doorashadii u dambeysay madaxtooyada waxaynu ogeyn waxa la wixii rabish ka dhacay waxaynu ogeyn caruuraynayna kaga dhinteen waxaynu ogeyn mudaharaadadii ka dhacay wixii la isku hayayna muxuu ahaa waxa la isku hayay diiwaan gelin aan ku galno iyo bilaa diiwaan gelin oo hagaagimeysa aan ku galno ciddii madaxweynaha maamulka la magac baxay Somali Central State ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud halkaasi oo siyaasiyiin iyo waxgarad ay si diiran ugu soo dhaweeyeen markii uu madaxweynuhu soo gaaray wariyaheena nooga soo warama magaalada Caabudwaaq Yuusuf ayaa inoo haya warbixinta warkaasi madaxweynaha maamulka bartamaha Soomaaliya ee Somali Central State Maxamed Xaashi Cabdi Ganay ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Caabudwaaq International Airport madaxweynaha ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Caabudwaaq ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somali Central State odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada iyo dadweyne kale oo aad u fara badan madaxweynaha oo markii dambe loo soo gudbiyay qaybta nasashada airportka ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalkiisii waxaana uu mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa asagoona sheegay in si wanaagsan ay uga qayb qaateen soo dhaweyntiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد runtii maanta waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa ilaahay annagu nabad qabna isu soo kaayacdiyay oo meesha soo keenay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan bulshada sharafta la qaybaheeda kala duwan oo lagu soo dhaweeyay maartay airportka magaalada Caabudwaaq deegaanka runtii waxaan u nimid qorshiyaha hore u weynay sidii aan u shaqayn jirnay inaan ugu sii shaqeyno hawshooda u wadno
insha allah waana isarki doonaa waana wada hadli doonaa intaas ayaan hadalka kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi. intaasi kadib ayaa madaxweynaha iyo gaadiid aad u fara badan ay ka soo galbiyeen garoonka ayagoona ku soo wareejiyey qaybaha kala duwan ee wadooyinka ku yaala magaaladan Cabudwaaq. intii uu ku jiray madaxweynaha socdaalkiisa ayaa hareeraha wadada waxaa taagnaa kumanaan qof oo lulayay caleemo qoyan kuwaasi oo ku dhawaaqayay erayo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha maamulka bartamaha Soomaaliya ee Somali Central State. يوسف عبد الشر تلفزيون عالمي قاهر رويال مقالة عبدواق. banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. dadka ka soo qayb galay banaanbaxani ayaa waxa ay sheegeen in si aad ay uga xun yihiin dagaaladii dhawaan halkaasi ka dhacay waxaana ay baaq u direen dawladda Soomaaliya. waxaa warbixinta warkaasi noo haya wariyaheena Caawil Abukar Maxamed. dibadbaxani ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa ahaa mid ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona dibadbaxa looga gol lahaa in baaq nabadeed loogu diro beelihii dhawaan ku dagaalamay magaalada Marka iyo sidoo kale deegaanada hoostaga gobolka Shabeellada Hoose. dibadbaxa ayaa sidoo kale waxa uu ahaa mid loogu baaqiyay dawladda Soomaaliya in faragelinta laga deeyo dadka ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose. dibadbaxa ayaa ugu horeyntiiba waxaa ka hadlay qaar kamid ah ugaasyada ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose ka soo qayb galay banaanbaxaasi. waxaan u meenay gobolkan gobol nabadeed waaye in aan ka baaqno beelaha isgaleen nabad aan ka baaqno. waxaan waaye Soomaalida ma isdhibayso walaal waaye daris waaye dhibka waxaa ka soo laayay dhinaca dawladda dhibaatada dawladda awooddo shacabka ma aha. madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka codsanayaa arrintan gudoomiyaha baarlamaanka dhibaatada waxaa nooga imanaysaa dhinaca dawladda. dadkan bixi beeraley waaye wadankan waxaa waaye gobolka Shabeellaha Hoose dad nabadeed waaye dad dhib raba ma aha in la qashqashaado dhibaata laga wado raalka ma nihin. hadalkayna ma badna ugaaska beesha iyo labada ugaas ayay ka hadleen. aniga hadalkayda waxaa u jeedaa walaalaha oo hoogaa hergifta dhahmartay sababtoodana dawladda ay ka mid aheed waxaan uga baaqaynaa habadda in la joojiyo. dhiigdaada ma rabno dalkayni dhiigdaad ma yaqaano dadka dhiigga rabow jooja dhiigga tan intaas markaan uga baaqo. war maxaa noo diiday Soomaali magaal iyo islaan ma kala leedahay waa maya waxaa la u kala irdhoobay federaal loo qaatay la is-unay oo 5 beelood looga dhigay markii la is-unaatay madii untiyada ma rabnaa naga daay. salaan kadib banaanbaxa waxaad ku saabsan yahay maadaama la cilaamiyey nin 70 jir ah oo ugaas sheeganayo oo cilaamiyey dagaal taas ayaa waxaan ka jeedinaynaa baaq nabadeed. waxaan ka jeedinaynaa oo banaanbaxa isku saabsan yahay waxa waaye meel gobolka Shabeellada Hoose waa gobol nabadgelyadiisa oo nabadgelyada jecel waaye maadaama isku baaqay dagaal oo isku cilaamiyey gobolka dadka degan waxaa la yiraahdaa digil iyo biimaal iyo banaadir la yiraahdaa dagaal lama rabaan. dawladda waxaan sheegaynaa ninka oo dagaal cilaamiyey ugaas sheeganayo haddaas dil toogas ku xukunayaan gobolka waa go'od gobolka Shabeellada Hoose waa goos. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi oo isna goobta ku sugnaa ayaa kulankaasi ka hadlay. gobolka Shabeellada Hoose dhibaa ku dhacay dhibaan la qarin karin baa ku dhacay. dhibka ku dhacay waxaa loo baahan yahay in la xalliyo. see lagu xallinaa si silmi ah oo xabad ahayn oo nabad ah ayaa lagu xallinaa insha Allah. tan kale waxaan leenahay dawladda federaalka oo annagu wakiil ka nahay oo annagu meeshaan dabagaab inta gashanay tuuto gashanay xabadda dhaxdeeda ku weynayna iimeynada
wasiiradeeni oo ka yimid maxaa ku caasimadda soo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo diray oo ka noqday afgooy agagaarkeeda arrintaasi arrin noo qalanta ma aha arrin shacabka shabeelle soo qalantana ma aha dhibku kama dhicin kaasa ballaare dhibku kama dhicin madaxtooyada dhowaan ayay ahayd markii ay diriiri ku dhex martay gobolka shabeellada hoose laba beel oo walaalo ah oo wada dega deegaanadaasi iyadoona dagaaladaasi haatan lasoo afjaray islamarkaana loogu baaqay in beelaha walaalaha ee wada dega gobolka shabeellada hoose inay joojiyaan colaada dhex taalla Awil Abukar Maxamed Royal TV Muqdisho magaalada Qardhana waxaa maanta tababar uga furmay qaar ka mid ah shaqaalaha cashuuraha ka qaada magaaladaasi iyo waliba ciidamada ilaalada ee booliska ee loogu talagalay inay cashuuraha ilaaliyaan waxaa warbixinta warkaasi magaalada Qardho inooga soo diray wariyaheena Yaxya Nuur Muumin waxaa magaalada Qardho ka furmay tababar loo qabanayo shaqaalaha iyo ciidanka ka howlgala gobolka Karkaar kuwaas oo tiradoodu ay dhameyd 20 xibnood shaqaalaha iyo ciidanka ka qayb galay tababarkan ayaa waxa ay kala ahaayeen shaqaalaha canshuuraha bariga shaqaalaha xisaabaadka shaqaalaha BRda tababarkan ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay ciidanka ilaalinta canshuuraha gobolka Karkaar iyo ciidanka nabadgelyada gobolka Karkaar ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay xisaabiyaha maaliyadda gobolka Karkaar Cabdirasaaq Cali Cartan oo halkaasi khudbad ka soo jeediyay maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii 2013 inaynu u helo jaanis khibradda waxbarasho ee shaqadeena inaynu helo sidaynu u gudanno munaasibaadka shaqooyinka saa ogtihiinba ama aan malaynayo inaynaan marnaba nasiib u helin tababar nooca kan oo kale ah sidaas darteed waxaynu ugu mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan maamulayaasha kala duwan ee wasaaradda ee inoo fududeeyay inaynu nasiib u helo ama jaanis laynoo siiyo tababar waxbarasho si aynu u gudanno waajibaadka shaqo taa ilaah baan ugu mahadcelinaynaa Qaasim Maxamed Yuusuf agaasimaha waaxda furdooyinka ayaa halkaasi ka hadlay kuna dhiirigeliyay qaybihii kala duwan ee qaadanaya tababarkan inay ka faa'iideystaan waxay noo tahay farxad dhamaanteen inaynu isugu nimaadno inagoo rabnaha inaynu aqoon korarsano ujeedadeena tahay inaynu barano waxaynu ku shaqeynayno oo ah sharciyad maaliyadeed loona baahan yahay haddaan aqoon loo helin inaan lagu shaqeyn karin aad iyo aad baan intaa waxaan ugu mahadnaqaynaa xisaabiyaha ee gobolka Karkaar proposalku soo jeediyay waa in loo tababaro ciidankiisa shaqaalihiisa iyo dhammaan dadka ay shaqo wadaagta yihiin iyaga oo la barayo shuruucda wasaaradda maaliyadda waxa weeyaan ay rabaan inay ku shaqeeyaan soo jeedintii iyo aqbalaadii uu ka aqbalay wasiirka wasaaradda maaliyadda oo aad ah nin aqoon badan oo jecel in wasaaradda maaliyadda dadka ka shaqeeya ay noqdaan dad waxay ku shaqeynayaan yaqaan arrinta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xisaabiyaha iyo wasiirka maaliyadda dhamaantood qabiir ku xil dheer nidaamka cashuuraha ahaana macallinkii bixinayay tababarkani oo lagu magacaabo Cismaan Xaaji Mire ayaa asigana halkaasi ka hadlay waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan baranno wixii aan ku shaqeynayno qofka shaqaalaha waajibaad buu leeyahay xuquuqna waa lagu leeyahay waajibaadka uu leeyahay waxa weeye inuu wixii loo xaq uu leeyahay waxa weeye inuu barto waxa uu ku shaqeynayo sidana dadka iyo dawladda wax u dhaxaya waa sharciga haddaan sharci jirin dadweyne wax lagama qaadi karo shuruucdana wax sida ogtiin baarlamaanka ayaa inoo dejiya baarlamaanka markaas golaha xukuumadda soo barbarkaraya baarlamaankana markaa ansixiya sharcigaasaa lagu shaqeyn karaa sidaa darteed maanta waxaynu baraynaynaa waxa weeye shuruucdii lagu shaqeyn lahaa hadday tahay cashuuraha dadban hadday tahay cashuuraha toosan hadday tahay ciidanka shaqadooda caadiga ah oo ay kastamada kaga shaqeeyaan tababarkan loo qabtay 20 kan xubnood ay isugu jiraan shaqaalaha cashuuraha bariga shaqaalaha xisaabaadka iyo shaqaalaha BRda iyo sidoo kale ciidanka ilaalada cashuuraha iyo ciidanka ammaanka magaalada Qardho ayaa waxa uu socon doonaa muddo dhan 10 maalin waxaana lagu wadaa inay waxyaabo badan ka faa'iideysan doonaan maadaama tababar noocan aan horey loogu qaban magaalada Qardho xubnahani kala duwan Yaxya Nuur Muumin telefishinka caalamiga Royal magaalada Qardho
warbixinta ayaa ugu dambeysay warkii ood kala socoteen Royal TV xaruntiisa magaalada London. warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaad. inta warka xiga ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.